madaxweyne kasta wuxuu hirgeliyaa danta dadkiisa. Ra'iisul wasaaraha Itoobiya federaalka Itoobiya waxa uu naga codsaday inaynu wada galno understanding ah in ay badda ka helaan meel ay degaan ciidankoodu maadaama ay leeyihiin ciidankii mariinska ahaa meel ay degaan. innaga Somalilandna waxaynu in badan Itoobiya iyo qaranka weydiisanaynay in laynoo aqoonsano qarannimadeena oo muddo badan maqan. waxaa inoo farxada oo naga mahadnaqayaa ra'iisul wasaaraha iyo Itoobiyaba sidii aanu ku heshiinay ay ku qoran halkan in annaguna aanu u ogolaano 20 kilomitir badda ah iyaguna markaaba ay na aqoonsadaan ay qaranka Soomaaliya dowladda u horeysay ay noqon doonaan marka la saxaashiska 20 kilomitir